kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo idiin soo diyaariso dalladda sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa carruurta da'da waxbarashada dhaaftay ee ku nool degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose oo helay fursado waxbarasho oo bilaash ah. dadka kala yimid gobolada dalka oo ka faa'iideystay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo warbixin aan idinkaga hayno dhalinyarada ka soo baxday jaamacadaha ee ku nool Beledweyn oo farsamada gacanta baranaya si shaqooyin ay u helaan. aan ku bilownay ardayda ka baxay jaamacadaha ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan ah kuwa baranaya farsamada gacanta si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda maadaama aysan shaqo ku helin shahaadooyinka ay ka qaateen jaamacadihii ay ka baxeen. waxa ay sheegeen inta ay fariisan lahaayeen guryaha ay ka doorbideen barashada farsamada gacanta oo hadda wax weyn ka bedeshay noloshooda. farsamooyinka dhalinyaradan ay barteen waxaa ka mid ah hagaajinta korontada, cilad bixinta baabuurta iyo sidoo kale samaynta ganjeelada. Shukri Baryare oo Beledweyne ku sugan ayaa ku eegaysa warbixintan. Mustafa Faarax oo ka qalin jabiyay heerka koobaad ee jaamacadda Joobkay faraceeda Beledweyne wuxuu shaqadiisii ugu horeysay helay dhamaadkii 2020kii kadib markii uu dib ugu laabtay xirfadda farsamada gacanta oo uu ka shaqayn jiray ka hor inta uusan bilaabin waxbarashada. shahaadadiisa maamulka ganacsiga oo uu sanadkii 2019 ka kasbaday jaamacadda wax albaab ah uma furin. waxa uu hadda ka shaqeeyaa goob lagu sameeyo ganjeelada, daaqadaha muraayada ah, kuraasta iskuulada iyo kuwa jaamacadaha, booyadaha biyaha lagu dhaamiyo iyo waxyaabo kale. wuxuuna hadda bishii helaa lacag dhan $300 oo uu ku dabaro nolosha qoyskiisa oo ka kooban 2 carruur ah iyo hooyadooda. sababta ku qasabtay inuu ku dhiirado dib ugu laabashada shaqadan waa inuu arkay in loo shaqeeyayaashu ay door bidaan dadka isku darsaday xirfadda iyo aqoonta jaamacadda. Mustafa ayaa kula taliyay dhalinyarada waxbaratay ee jaamiciyiinta inay ku biiraan goobaha lagu barto farsamada gacanta si shirkadaha wax soo saarka ay shaqo uga helaan ama ay xoogooda ugu shaqeystaan oo ay meel furtaan intii ay sugi lahaayeen shaqo aqoontooda u qalanta. annaga haddii aan weynin in mataqaanaa shahaadada wax ku helno baahida gaarka iyo soo wareejis waxay noqotay in mataqaanaa xirfadda aan lahaay xooggiga ku shaqeysto qalbiga ku haya in wax soo bartay inkastoo mataqaanaa hobbiga iyo jacaylka aan rabeen gaarin laakiin waa ku filan tahay nolosha qoyskayga iyo waxa baana nima taqaaniyaata lama dhaho. annaga waxaan hor kacay waa shahaadadeena aqoonteena maadaama kulliyada dadka waa loo jeedaa markii laga soo baxo jaamacaddii noloshiida isku maareeyay mataqaanaa iyo xirfadda iyo shaqada aan lahayn. magaaladani Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan kuma yaalaan dugsiyo lagu barto farsamada gacanta kuwaas oo ay fursad u noqon lahayd dadka aan weligood wax baran iyo ardayda ka soo baxay dugsiyada dhexe iyo sare ee doonaya in xoogooda ay ku shaqeystaan. balse goobaha garaashada iyo meelo la mid ah ayay ardayda jaamacadaha dhigta iyo kuwa soo dhameeyay ka bartaan farsamada gacanta. Cabdikaafi Cali oo ah milkiilaha garaash lagu cilad bixiyo baabuurta ayaa Sooma u sheegay in dhalinyarada waxbaratay ay maskax ahaan ka diyaarsan yihiin kuwa aan waxbaran ayna jirto qayb u gaar ah ardayda jaamacadaha sababtuna ay tahay inay daboolaan baahida kuwa doonaya inay bartaan xirfadaha farsamada si ay shaqooyin u helaan. wuxuu xusay in 9 dhalinyaro ah ay hadda ka shaqeeyaan garaashkiisa, 3 ka mid ah ayaa soo dhameeyay dugsiga sare halka 6 kale ay jaamacadaha magaalada 2 sano ee la soo dhaafay dhameeyeen. si fiican waxa ku jira ilaa 6 oo sanadihii ugu dambeeyay sida hadda 2 sano la soo dhaafay ama soo dhameeyay jaamacadaha. sidoo kale waxa ku jira ilaa 3 ayaguna soo dhameeyay dugsiga sare. marka loo eego dhalinyarada waxbaratay inta badan waa firfircoon yihiin dadka kale oo aan waxba baran. way jiraan sababtoo ah magaalada waad aragtaan shaqo la'aanta ka jirta aad bay u baahsan tahay
mar kale ayaan ballaminaa si uu markii qof uu kaga baxo oo shaqadii ka taga aan meeshii booskii ugu bedelno. haddii aysan markaasi macquul ahayn inaan aqbalnana waan iska tirnaa. Qaar ka mid ah ardayda baratay farsamada gacanta ee jaamiciyiinta ah ayaa furtay xarumo u gaar ah oo ay ku shaqaystaan, taasi oo ay shaqo ka sii heleen dhalinyaro kale oo muruqmaal ah. Cali Cabdulaahi oo bartay cilmiga injineerinka wuxuu furtay xarun u gaar ah oo lagu cilad bixiyo korontada, diishashka iyo qaboojiyayaasha kadib markii ay waalidkiisa ka caawiyeen inuu furto goobtan, waxaana hadda la shaqeysa in ka badan 10 dhalinyaro ah oo uu isagu shaqada ku tababaray. Waxa uu dhameeyay jaamacadda sanadkii la soo dhaafay, isla markaana ay jirto dhowr xafiis oo uu shaqo u doontay, balse ilaa hadda uusan ka helin wax jawaab ah, isaga oo go'aansaday in xooggiisa uu ku shaqeysto, taasi oo khasabtay in uu barto farsamada gacanta. Cali waxa uu aaminsan yahay hadda inuusan gaari lahayn halka uu maanta joogo haddii uu ku mashquuli lahaa raadinta shaqo u qalanta cilmigiisa jaamacadeed. Waxa uu Sooma u sheegay inuu ogaa in xirfadda uu soo bartay uu ka heli karo lacag fiican haddii meel u gaar ah uu u furto. aniga horta in badan macnaha hay'ado badan waan ku noqday macnaha shahaadayga waa geystay macnaha wax walba waxay noqotay 4.5 ay noqotay anigana waxaa iska jeclaystay inaan macnaha xoogayga iskaga shaqeysto hay'adii jaamacadii macnaha shahaadada aan ka soo qaatay aan meel iska dhigo ilaa macnaha ay ka soo baxayso shaqo wanaagsan oo macnaha dalka iyo dadka wax loogu qaban karo ha yaraadaan ha badnaadaan macnaha hadda alxamdulillah wax dhiba kuma qabno. Aqoon-yahanada magaalada ayaa tilmaamay in shaqo la'aanta kaliya aysan ku koobnayn Beledweyne, balse dalka oo dhan ay ka jirto, loona baahan yahay in dhalinyarada aysan ka faanin barashada xirfadaha gacanta, xoojiyaan si ay shaqo u helaan, maadaama dalka aysan ka jirin dowlad awood u leh shaqaaleysiinta dhalinyarada ka soo baxaya jaamacadaha dalka guud ahaan sanad kasta. Shukri Bareere Maxamuud, Wadaagga Sooma, Beledweyne. way mahadsan tahay waryaheena Shukri Baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay. dadka kala yimid gobolada dalka ayaa Muqdisho lagu siiyay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca qoysaska iyo dadka deriska ah, iyadoo sidoo kale dadka la baray sida ay u heli karaan xuquuqda uga maqan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo waajibka saaran si uusan xadgudub u dhicin. dadkii ka qayb qaatay tababarkan ayaa tilmaamay in tani ay wax badan ka bedelayso noloshooda. Cabdulqaadir Xuseen oo Muqdisho jooga ayaa ku eegaya warbixintan. boqolaal qof oo laga kala keenay degmooyinka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa helay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada iyo sidoo kale sida ay ku heli karaan xuquuqda uga maqan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Zamzam Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka tababarka qaatay ayaa sheegtay inay si gaar ah ugu shaqeyso hadda xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca haweenka ku nool xaafadda ay degan tahay ayna ku guuleysatay inay xaliso kiisas badan. waxa ay sheegtay in wixii ay wax ka qaban weyso inay u gudbiso dadka kale ilaa ugu dambeyn la gaarsiiyo saldhigga ciidanka booliska ee degmada haddii kiisku yahay mid culus oo ka weyn in dadka ku nool xaafaddu ay xaliyaan. dadka deegaanka isla oo muslimiinta oo isla deganahay heshiiyaan kan naagtan inankan hadii isdagaalaan unug la heshiiyeyn ay naag iyo naaga isdagaalaan ilmaha la isku dagaalaa hadkan unug la heshiiyeyn hadda wax oo dhib ah hadda unug kaamkaas oo hadda unug oo ku haysana ma jirto laakiin hadii dagaal dhaco unug heshiin hadii ka daranay imaadana. tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka waxaa siiya dadka xafiiska garyaqaanada ee Colaad Law Firm, waxaana tababaradaasi ka faa'iideystay sanadkii la soo dhaafay 700 oo qof. tababarka ayaa bilowday bishii November ee sanadkii 2021 waxaana uu dhamaaday horaantii bishan January ee sanadkan. gudoomiyaha Colaad Law Firm garyaqaan Maxamed Cabdi Daahir ayaa sheegay in ujeedada tababarkan uu ahaa sidii loogu hortagi lahaa khilaafyada ka dhaca bulshada dhexdeeda, loona bari lahaa dadka sida loo xaliyo dhibaatooyinka iyo wixii sharci ahaan u leeyihiin ama loogu leeyahay si aan loogu xadgudbin. labada qaybood waxaa la yiraahdo HLB wax la yiraahdo Housing Land and Property
iyo waxaa kamid ah alternative dispute resolution labadaas arrin aan focus ka saaraynay. waxaa jirta arrin kale oo dhibaatooyinka mar walba taagan ah oo ah force infectionka ama barakicinta qasabka ah. marka taasna training gooni ah oo ayadana aan waqti kusoo bixinaa jiray. saddexaas arrimood marka aan tababarka aan focus ku saaraynay oo runtii dadku aad ay ugu baahan yihiin. haddii la fiirsho dhibaatooyinka ayaga haysta oo dhexdooda haysta markay wada degan yihiin family issue la isku qabsado, caruur yar oo dagaasho la isku arrintooda isku dhacdo ka bacdi dadkii waaweyn ay gaarto. dhibaatooyinkaas oo dhan markay yimaadaan qaabkay u xalli lahaayeen aan tababar ka siinay oo ah inay committee yeeshaan, guddiyo yeeshaan, guddiyadaas arrinta la hoosgeeyo. Bishaar Cali Faarax oo isana ka mid ah dadka helay tababarkan ayaa Sooma u sheegay inay jiraan kiisas badan oo ay ku guuleysteen tan iyo markii ay qaateen tababarkan inay xaliyaan, kuwaasoo fududeeyay in hoos ay u dhacaan dhibaatooyinka ay isku geysan jireen dadka oo ay ka mid yihiin isdilka caruurta iyo isku dhaca haweenka xaafadihiisa degan. waxa uu sheegay in celcelis ahaan bishii ay xaliyaan ugu yaraan 15 kiis oo kala duwan, sidoo kalena ay gudbiyaan kuwa aysan wax ka qaban karin sida inay gaarsiiyaan saldhigga ugu dhow iyo waaxda degmada. waxa uu tilmaamay in guddigooda oo laga soo xulay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid ay ku kooban yihiin 2 ruux, laakiin markii ay heleen tababarka ay bixisay Colaad Law Fame ay bilaabeen inay si joogto ah dadka ugu wacyigeliyaan dhibaatooyinka uu leeyahay khilaafka dhexdooda ah. waxaan ku halanaa labada qof marka isku dhacaan islaax been naas ayaan ku sameynaa, waa kala qabanaa. waxaan leenahay niyahay say iskugu dhacdan saasaan isku qabanay, saasaan isku qabanay markay dhaxan way adiga waa qaldantahay joogan leenahay. haddii qaladkiisa aan ku saxno yacni labada qofood isku dhaceen oo xaaladaas isqalbi gaadeen ayaan inta soo qaban. waxaan leenahay bal ilaahay dadtiisa hal isku cafiyo ee isku taga sidii aan isku geynaa. haddii olooshooda nadiif ay noqoto waa haddii kii dacwo oo dhib gaado wuxuu leeyahay aniga ninkan dhibkaas uu igaasiyey uu igalaafeeyey xaliga soo talay hadday dhaxaan insha Allah waa lagu soo talina hadduu alla kaalmo waan dhahaynaa. saaxiib miyaan nahay saddex soo kuguma qabin saqda dhexe miyaa dumar suuqa soo marmari jiray raguna seexan jiray meel admaasaatan loo rogay waa wareey oo sidatan loo rogay yaabayey gurgiisaatan loo rogay wadini sirgacanu akhiru sabaane allahayowna sama bixi haysejin anigana waqtiga adna saxan soo meel kale ilayn sidan kuguma hayn karaay sooti la odhan jiray dumar wasarigitaan saakana waxaa xigay inay suuqa meeraan raggana ay salooshaan saban hore waxaa jiray oo sugnaa gabadh khayli sidato saafiyoon sakadooda dhaafay sanadahana waxa kacay subaxdii ku aragtaba garibay saaxiib ku leedahay. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. caadi ahaan ardayga marka uu jiro da'da 15 sano Soomaaliya waxaa la rabaa in uu bilaabo dugsiga sare, laakiin fursadaas ma aysan helin caruurta dadka danta yar ee ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. caruurta ka soo jeeda qoysaska danta yar ayaa hadda bilaabay waxbarashada aasaasiga ah,
qaarkoodna waa ay dhaafeen da'dii ay ahayd in lagu geeyo dugsiga hoose. waxa ay wax ka baranayaan iskuul si lacag la'aan ah wax lagu baro gelin ka mida maalintii oo ay ugu tabaruceen dhalinyaro degmada ka soo jeeda oo wax bartay. haddaba warbixin aan arrintaas ku eegayno waxaa walaweyn inooga soo diray maxamed cabdiraxmaan maxamed. ku dhowaad 20 dhalinyaro ah oo dhaafay da'da waxbarashada asaasiga ah isuguna jira wiilal iyo gabdho ayaa ka faa'iideystay fursad si lacag la'aan ah wax lagu barayo taa oo ay hirgeliyeen aqoon-yahano ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Nasteexa Macalin Abuukar oo 17 jir ah waxa ay ku faraxsan tahay inay heshay iskuul aan wax lacaga ka qaadin iyadoo hadda dhigata fasalka 6aad ee dugsiga hoose oo ay ku qaadato 7 maado gelin ka dambe maalin walba marka laga reebo Khamiista iyo Jimcaha. waxa ay sheegtay inay aad u jeceshahay waxbarashada laakiin ay fursada u saamixi weyday inay wax barato maadaama ay waalidkeed oo beeraley ah iyadana ay ka caawin jirtay shaqada marna ay guriga joogi jirtay. Nasteexo oo ku biirtay iskuulka Daafay sanadkii 2020 waxa ay u aragtaa in tani ay tahay fursadii ay uga badbaadi lahayd jahliga. waxa ay ku haminaysaa inay meel sare ka gaarto waxbarashada oo ay noqoto mustaqbalka dhakhtarad si bulshadeeda ay u caawiso. wiilal suuxiya aan galaftiga barta ingiriisi barta xisaab barta Soomaali ay mustaqbalka ma xarjeenayna caafimaadka dooreeso inaan caafimaad inaad gargaar. wiilal iyo gabdho oo iskuulka markii hore uga haray waxbarashada lacagaha ku baxaya oo aysan qoyskooda awoodin maadaama ay yihiin beeraley ayaa ka faa'iideystay sidoo kale fursadan kuwaas oo gaaraya 150 arday. Cabdifataax Minneapolis oo ka mid ah dhalinyarada abuurtay fikirka ah in kuwa dhaafay da'da waxbarashada asaasiga ee ku nool degmada Walaweyn loo faa'iideeyo ayaa sheegaya in deegaanka ay ka jirto baahi weyn oo xagga waxbarashada ah. waxa uu xusay in ujeedadoodu ay tahay in degmadu hesho jiil ku fiican waxbarashada ay u go'aansadeen in gelin ay shaqaystaan halka gelin ka dambana ay si bilaash ah wax ku baraan ardaydan tan iyo 2019 isagoo ugu baaqay dhalinyarada aqoonta leh inay u faa'iideeyaan caruurtan oo leh mustaqbal wanaagsan. Cabdifataax ayaa tilmaamay in markii hore bulshada degmada ay u arkayeen inay mashaariic ku qaateen lacag balse markii dambe ay ka dhaadhiciyeen rabitaankooda ah soo nooleynta waxbarashada iyaga oo rajadooda ugu weyn ay tahay inay hirgeliyaan xarumo sidaan oo kale ah maadaama ay dadku si wanaagsan u fahmeen muhiimadda ay leedahay in caruurta wax la baro. wallaahi iskuulkan ujeedada aan sameynay waa caqabado badan ay jirto oo xagga dhanka waxbarashada baayaha gaarka aynu aragnay iyo kan guudba dadka bulshada aad dadka qaar waxa iska danyar aysan awoodin iskuulaad qaar qarshaadka la bixiyo waxaanu marka aanu sameynay inaan iskuulka aanu aasno si free aanu wax ku barno ee dadka aysan awoodin in qarshaadka lacagaha iskuulaadka ay ka bixiyaan ardayda inaan iskuulkan u furno inaan wax qarash aan ka qaadin in aan maxayto iskiina wax ku barno. sidoo kale Kalar Maxamed Xasan oo 15 jir ah waa qofka kaliya ee qoyskiisa ee wax ka barta xilligan isaga oo ka faa'iideystay fursadda lacag la'aanta ee iskuulka Daafeed. waxa uu xusay in wiilal ay daris yihiin markii hore ay wax u dhigi jireen haddana uu yahay fasalka 5aad ee dugsiga hoose gelinna uu beerta kala shaqeeyo qoyskiisa halka uu gelin ka dambana uu aado iskuulka. Kalar hadda waxa uu qori yaqaan af Soomaaliga sidoo kalena waa akhrin yaqaana inkastoo uusan weligiis ku fikirin inuu noqon doono arday fasal waxbarasho fariista haddana ay jirtay jaceylka uu qabo waxbarashada uu kaga maseeri jiray dhalinyarada la midka ah ee iskuulada aada subax kasta. iskuulka inta ku soo biirtay noloshaada maxaa iska bedelay? wax badan maxaa ka mid ah sida waxbarashada English, xisaab, Soomaali, saynis, cilmi bulsho, tarbiyo, Carabi, technology. xaafadiina ama familkiina dad kale wax bartay ma jiraan? maya anle intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su-aasha ah sidee ayay bulshada muhiim ugu tahay in la baro xalinta khilaafaadka. nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. mahadsanidin.